sharaxa xildhibaan ee Maxamed Siciid Yare waxa uu ka mid yahay murashaxiinta u tartamaysa qabashada xilka baarlamaanka golaha shacabka ee Soomaaliya kuwaas oo hadda ka socda qaybo ka mid ah dalka muddo ayuuna ku soo jiray ololaha uu ku doonayo hanashada xilkaasi waxa uu ku dhashay gobolka Mudug isla markaana waxa uu wax ku bartay isla gobolka iyo meelo kale waa aqoon-yahan lagu xasuusto doorka uu ku leeyahay waxbarashada dalka kadib burburkii dawladda dhexe ee Soomaaliya waxa uu ka mid ahaa dadkii u tafaxaytay inay dalka ku soo kordhiyaan waxbarasho si loo manaanfaco waxa uu aasaasay iskuulo iyo jaamacado ku yaala magaalada Muqdisho kuwaas oo sanad waliba ay ka aflaxaan kumanaan arday Soomaali ah oo dib u anfaca naftooda iyo waalidkii dhalay sidoo kale waa ganacsade magac ku leh bulshada dhexdeeda wuxuu ka mid ahaa dadkii ka qayb qaatay nabadeyntii dhexmartay beelo walaalo ah kuwaas oo wajigiisa kuwaad uu ka dhacay magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug bilowgii sanadkii tagay waxaana wajigiisa labaad uu ka dhacay degmada Galdobow ee gobolka Mudug taasoo ilaa ay hadirtaan nabadeynta maanta lagu caanamaalayo halkaasi ay ka jirto dhanka kale wuxuu qayb ka ahaa heshiis hordhac ah oo ay gaareen beelo kale oo Soomaali ah isla markaana ka dhacay bariga fog ee gobolka Mudug isaga iyo mas'uuliyiin ka tirsan maamulada Galmudug iyo Puntland shirkaas oo ka dhacay geed hoostiis waxa uu Master Siciid Yare tusay qiimaha nabadeyntu ay leedahay iyo in colaadu ay si wax faa'iido lahayn isagoona maalinkaasi dhulka la dhacay qoriga AK47 loo yaqaano musharaxan ayaa intuu ku sugnaa magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug waxa uu kulamo la qaatay qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka siyaasiyiinta iyo qaybaha kala duwan ee bulshada musharaxan ayaa intuu ku guda jiray ololihiisa siyaasadda waxa uu booqday goobo muhiim ah waxaana ka mid ah meelihii uu booqday garoonka kubadda cagta Cabdullaahi Ciise halkaasoo ay ku soo dhaweeyeen dhalinyaro xilligaasi ciyaar finaala waxaana halkaasi si weyn ugu soo dhaweeyay dhalinyaradii ku sugnaa gudaha garoonka kubadda cagta ee Cabdullaahi Ciise iyagoona ugu mahad celiyay booqashada gaabna ee uu ku tagay halkaasi musharaxa xildhibaan Maxamed Siciid Yare wuxuu booqashooyin kala duwan ku tagay deegaano iyo degmooyin ka kala tirsan gobolada Mudug iyo Galgaduud meelihii uu booqashada ku tagay waxa ka mid ah wadada Heeco oo 45 kiiloomitir oo rafaad iyo dib ay ku qabaan dadka ku safraan waxa uuna ballan qaaday inuu ka qayb qaadan doono sidii loo dhisi lahaa wadadaasi oo hadda guddigii dhisi lahaa ay wadaan qabanqaabada waxa kale uu booqday deegaanka Qaydare oo xilligaas ay ka jirtay biyo la'aan baahsan dhinaca kale waxa uu safar ku tagay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug waxa uuna halkaasi kula kulmay madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor iyo siyaasiyiin iyagoo ka wada hadlay marxaladda dalka xildhibaan doonahan ayaa kursiga uu doonaya oo sumadiisu ay tahay Hope Ever 95 deegaan doorashadiisuna ay tahay magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug wuxuu xusay in haddii uu ku guuleystay kursiga uu u adeegi doono beelaha uu ku matali doono kursigaani xilligaani ayaa Soomaaliya waxa ka dhici doona doorasho